munaasabad ballaaran ay ka qalin jabinayeen dufcaddii sideeda ee barataa culumta islaamiga ah ee macadka ibnu kathiir ayaa lagu qabtay howlka dugsiga shaafici ee magaalada Ceerigaabo waxaana ka soo qayb galay barisaab ku-xigeenka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceerigaabo xildhibaano waalidiin macallimiin iyo ardaydii qalin jabinaysay waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay doomiyaha macadka ibnu kathiir Sheekh Cabdirashiid Maxamed Warsame oo faahfaahin ka bixiyay marxaladihii uu soo maray ابن كثير للعلوم الشرعية والعربية وحال الدهفري لبكن يا سقالكي مركز والله قفري هل لبا كلاس باب وكم ده على سعيد هل كهاد لي ركلوا فربنا علماء وهذا إنمية هلا لو قبل كتشوج واحد بدنا دعوة كتري ترى هذا إنه ما توفرنا وتيسي ديدات إلهي باكما سبحانه وتعالى نقول سميستي دابين نشوقنه يضع هالكن أرديك قالين تبيني سو دفعة ودفعة رنتي بدن دفعة يقول بدنا معك كبح هذان لو رنك رواتي يقول بدنا يتبع dhanka kalena waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceerigaabo xogayaha degmada Ceerigaabo xildhibaano iyaguna dhamaantoodba ardayda kula dardaarmay inay halkaasi ka wadaan waxbarashada waxayaguna intii munaasabadu socotay halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay barteen qaar ka mid ah ardayda ka aflaxday macadka ibnu kathiir ee magaalada Ceerigaabo leeyahay ardayda ka soo qalin jabisay macadkan oo maanta hortayda fadhida iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay hambaliyo aan u hambaliyeeyo ardayda qalin jabisay ee macadka ka baxday ee haddana ku sii socota inay jaamacadaha u gudbaan waxaanu leenahay waad mahadsantihiin mabruuk baanu leenahay alfa mabruuk waxaan leeyahay ardadaasaan la faraxsannahay waxaan aad ula sii faraxsannahay kuwan u ducaynaynaa macallimiinta waxaan u bogaadinayaa salaamayaa ardayda maanta halka ka qalin jabisay ama qaybtii hore waxbarashada soo dhammaysatay ayaan si kal iyo laaba mar haddii ardayda inta faraha leega ay ka soo baxaan macadka ibnu kathiir waxaan rajaynaynaa jaamacadda inay sideeda ugu soo wareegaan hal dabal ayagoo aan cidi ka hadhin annana insha allahu tacaala wax naga ballana inaan insha allahu tacaala ardayda wanka iyo tuuga ama wanka aan horta bal dib isugu noqdeen ardayga koobaad insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa bilaash waxaan leeyahay walaalayaal oo mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya ardaydaasaan farxadda la qaybsanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ay barteen haw barakeeyo kuwa ummadda ku anfaca iyo diintoodaba ku anfacna allaha ka yeelo aabaa'iya alakaarim wa ummahaati alcadiimaat أساتذة الأفاضل barisaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceerigaabo ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay una soo jeediyay ardayda qalin jabisay inay sii laban aqoontooda dambeyntiina waxa shahaadooyinkii la guddoonsiiyay ardaydii ka aflaxday macadka ibnu kathiir ee magaalada Ceerigaabo dadaalka badan u gashay Ceerigaabo ee muddada soo waday macadkan waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro dembigood iyo kii waalidiintoodna allah ku dhaafo ardaydan waalidiinta gacanta ku haysay ee dadaashay waktigaa la soo rafatay akhri zamanka iyagana waxaan leeyahay waalidiinta ilaahay dembigiina ku dhaafo salaan ka bacdi farxad bay noo tahay maanta in intaa ardayda intaa leeg ee boqol iyo siyaadada ay ka qalin jabiyaan maxadkan horumar gobolka u soo hoyday weeye waa Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Ceerigaabo